لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago 10 qodob oo ku saabsan waxyaabaha qofka waqtiga ka dila ama ka lumiya isaguna uu boodayo in waqtigiisii una luminin. 10 qodob haddii aad isku daydo mid kamid ah inaad leedahay waxaad isku dayi doontaa insha Allah ta'ala sidii aad uga hortagi lahayd. qodobka koowaad ee qofka waqtiga ka lumiya waxa kamid ah warwarka wax loo yaqaano warwarku jirka uu daciifiya qofkana waqtigiisa uu qaataa wax badan oo soo kordhiyo. qodobka labaad waxyaabaha qofka waqtiga ka lumiya waxa kamid ah cabashada loo yaqaano gaar ahaan complaining qofka waxyaabo wax ka qaban kara ka cabanaya qofka hal sidoo uga heli lahaa isku dayay inuu ka gaaro arrin gaara laakiin wuxuu wax ka qaban karin qofka ka cabanaya waqti badan la gelinaya waqti ku luminaya. qodobka saddexaad daawashada badan ee waxyaabaha faa'iidada lahayn qofka markasta uu ka daawado ama TV-ga daawada ama meelaha kale wax badan ka daawado wax badan oo meesha ka faa'iideyn waqtigiisa ka lumaya. qodobka afraad caajisnimadu waxa la yiraahdaa qofka shaqada uu qabanayo iyo hawlaha uu qabanayana dib uga dhigtaa wax badan way dhaafisaa. qodobka shanaad qofka ka cabsada inuu guul darro ku dhaco qofka isku daya inuu markasta guul gaaro hadduu shaygan sameeyana uu guul darro ka cabsanayo taasina waxay keenaysaa markaa waqti badan inuu kaga lumo halkii uu qofku ka raadin lahaa sidoo xal u keen lahaa guul u gaar lahaa. qodobka lixaad qofka isku daya markasta inuu noqdo qof wada sax waxa loo yaqaan perfect qofka isku daya 100% inuu noqdo qof saxan ay marar badan masaxmis waxyaabo badan ba ka qaldanaya bini aadan baa tahay qalad baa imanaya waxyaabo badan baa imanaya marka isku daya qofku inuu 100% sax noqdo iyadoo wax keenaysa waqti badan inuu ka lumo. qodobka toddobaad qofka isku daya uun markasta inuu soo cindiri gelisa qofka wallahi wax loo yaqaan internal motivation ama isagu isdiri gelin laakiin markasta sugaya cindiri gelisa ama dhabarka ka taabato horos ugu tiraada. qodobka sideedaad wax weeye qofka oo eega dadku waxay kala yihiin ama tixgeliya aragtida dadku ay ka qabaan qofku markasta mashquulo oo sometimes loo baahan yahay qofku inuu eego dadku waxay kala yihiin laakiin qofku inuu waqti ku lumiyo oo uu 24 saacadood eego dadka kale maxay ka aaminsan yihiin waxay keenaysaa qofku waqti badan halkaas kaga lumo. qodobka sagaalaad qofka oo ku celceliya qalad hal qalad oo sameeyo qofka uu jeedo ku celceliya arrintaas marka waxay keenaysaa qaladkii markuu sameeyo qofka wax ka barta loo baahan yahay laakiin hadduu berri ku celiyo saacad uu ku celiyo kaana waxa ku lumaya waqti badan qofkii ka galayo. qodobka dambeeya ee tobnaad wax weyn waa sugitaanka qofka oo una gacanta ku haynin ama una arjum weyn laakiin wax ka qabin taana marka waxa dhacaysa inta uu sugayo in sanad laba sano mustaqbalka waxyaabaha dhan way dhacaan weli yimaadaan noloshay ka mid yihiin laakiin aan leenahay in qofku ku dhici weeyaan kuwana waqti qaata oo kuwana qofku isku mashquuliyo oo kuwana qofku halkii xal u keeni lahaa oo isku dayo in iyagii xaaladii ku jiray mashquul tusaale ahaan oo kale qofku haddii uu caajis yahay caajisnimadii inuu ku mashquulo oo waqti geliyo laakiin uu ku mashquulo sidoo caajisnimada uga bixi lahaa oo xal u keeni lahaa tusaale ahaan oo kale qofku isku daya inuu qalad dhacay waxba ka baranin haddana bixi waxay keenayaan qofkii waqti badan halkaasi inuu ku lumo dhammaanteed baasti. haddii aad jeceshahay muuqaalada noocan soo badino fadlan share asxaabtaadana sii gaarsii sidoo kale ku qabo insha Allah taala soo badin doona.